السلام عليكم soo dhawaada saaxiibadeena YouTube filimkan wuxuu ku bilaabanayaa gudaha diyaarad taas oo ku socota magaalo kamid ah dalka Ruushka rakaab yar ayaa saaran waxa kamid ah Katay oo 7 jir ah iyo hooyadeed waa markii ugu horeysay oo ay wada raacaan diyaarad laakiin waxay u muuqataa mid degan si kastaba ha ahaatee kadib markii ay saaxato masiibo ayaa dhacday mid kamid ah matoorada diyaaradda ayaa bilaabay inay xumaadaan markii ay Katay kacday ma aysan helin hooyadeed oo agteeda fadhiday oo waxay bilowday argagax laakiin waxay baratay islaan duq ah oo yaab leh oo gadaasheeda ka qaylinaysa ilbiriqsiga ku xigay duuliyaashu waxay luminayaan guud ahaan xakamaynta diyaaradda ugu dambeyntiina way burburtay diyaaraddu qof kasta oo saarnaana wuu geeriyooday laga reebo Katay oo si mucjiso leh uga badbaaday intaas kadib 20 sano dhacdadan Katay waxay muddo dheer ka soo kabsatay dhaawac waxa ay leedahay hadda gabadh magaceeda la yiraahdo Diana marka loo eego shaqadeeda ayadu waa mid kamid ah dhaqaatiirta cilmi nafsiga ugu guulaha badan maalin maalmaha kamid ah saxafiyiinta qaar ayaa Katie ku taagay meel baarkin ah waxa ay bilaabeen in ay weydiiyaan su'aalo aan loo baahnayn oo ku saabsan dhacdadii ku dhacday maalintaas tahawareer waxa ay rabeen in ay ogaadaan sida ay ugu suurta gashay in ay ka badbaado waxa aan la maqli karin si kastaba ha ahaatee Katie si fudud ayay u cadeysay oo way baxday ayadoo ku andacoonaysa in ay leedahay kulal muhiim ah oo ay ka qayb galayso habeenkii xigay labadooda hooyo iyo inantoodu waxay raaceen diyaarad Moscow u socota si ay u boqdaan qaraabadooda waxay daaha ka qaaday in dhacdadan kadib Katay aysan baqin duulimaadyada sidaas darteed ay midal raacdo inkastoo cimiladu aad u xun tahay haddana waxaa jira dhowr kale oo rakaab ah dhanka kale Katay waxay baratay nin dhalinyaro ah oo aad u qurxoon oo lagu magacaabo Alex waxa uu ka caawinaya ayada shaqadeeda kadib si toos ah ayay u fadhiisatay markay diyaaraddu isku diyaarinaysay inay kacdo Katay waxay bilowday inay furto isla markiiba waxay maqashay buuq xoogan oo kaga yimi gadaal waxaanay aragtay haweeneyda ah oo ka fakiraysa safarada cimilada sidaas darteed waxa ay ka codsanaysaa adeega diyaaradda inuu fasaxdo inay si kastaba ha ahaatee ninkeeda ayaa ku adkeeyay inuu joojiyo Katay ayadoo ah cilmi nafsi yaqaana isla markiiba ficil bay gashay kadib waxa ay siisay xogaa kaniin ah oo ay kaga nasato kadeedkii ka hor inta aysan hela kale safafka hore waxa layna barayaa laba rakaab oo soo haray mid kamid ah waa ganacsade taajir ah oo lagu magacaabo Niyoki halka kan kale uu yahay farshaxan gacmeed oo lagu magacaabo Bayfield dhanka kale Katie waxay bilowday in ay maqasho dhawaaq qariib ah sidaas awgeed waxa ay garaacday musqusha waxa ay qaadatay xogaa kaniin ah waxay ka soo baxday iyadoo il daran taas oo ka dhigaysa inay wax badan ka fakarto muddo kadib waxay ku sii socotaa in ay dib ugu laabato fadhigeeda laakiin markii alaabta furtay way naxday waxay si la yaab leh iskugu aragtay gurigoodii iyo caruurnimadoodii halkaas oo ay ku wada noolaayeen hooyadeed ka hor intii aysan galin shilka jahwareer bay ku wareegtay ilaa ay ka heshay albaabka kaas oo dib ugu celinaya diyaaradda kadib Alex waxay dareentay inuu dareemayo raaxo la'aan waxaanay weydiisay inuu fiican yahay Katie waxay kelmado ku tiri sidaas darteed Dayni in yar ayay daaha ka qaaday wax walba oo ku saabsan sidaas hooyadeed ahayd qofka kaliya oo dilaa ah 20 sano ka hor waqtigan xaadirkan ah waxa ay dhaqaajinaysaa sidii ayada oo dhan oo aan ka baqin duulimaadyada laakiin gunta hoose wali way ka murugaysan tahay markii uu maqlay Alextan aad ayuu ula yaabay muuqaalka xiga diyaaradda ugu dambeyntii way kacday Katina xoogaa way isdajisay waxayna markiiba bilowday inay la hadasho Alex halkaas kan dambe uu muujinayo inuu yahay wariye dagaal waxa uu si dhab ah ugu safray aagaga dagaalka adduunka taas bedelkeeda Katie waxay sidoo kale ka hadashay shaqadeeda dhakhtarnimo iyo maskaxdeedaba dhowr saacadood kadib qof kasta wuu seexday Katie waxay ku riyootay halkii ay ku aragtay neefteeda ayada iyo hooyadeed waxa ay lahaayeen sheeko caadi ah oo ku saabsan maalintooda isla markiiba Katie waxa ay ogaatay in wajiga hooyadeed uu dhaawacmay oo na gubtay waxa ay weydiisay in ay dhimatay hooyadeed shilka diyaaradda laakiin hooyadeed ayaa u xaqiijisay in ay tahay waxana riyo ayna fiican tahay ayaa isla intaas kadib hooyadeed ayaa silma filaana u qabanaysa taas ku kaliftay inay ka kacdo diyaaradda siib daro xaaladda halkan kama roona diyaaraddu waxay maraysaa xaalad qaralaase oo daran taas oo ay ugu wacan tahay odayga safarka dambe ku jira wadnaha ayaa istaagay shaqaalaha duulimaadyada waxay u degdegayaan in ay caawiyaan isla markiiba waxay bilaabeen inay qabtaan CPR dhowr ilbiriqsi ka bacdi ninkii silma filaana ayuu u soo toosay waxana uu qabsaday Katay waxa uu dhagaha ugu sheegay kadib wuu baxay marka kale rabshadaha ayaa sidoo kale ka sii daraya
waxay dareentaa gacan madow oo qariib ah oo ku qabanaya kursiga gadaasheeda ah. isla markiiba odaygu wuu nafisay, balse naftii ayaa ka baxday. naagtiisu way murugootay. rakaabka xitaa may helin waqti ay qalbiga ugu qaboojiyaan maadaama rabshadaha dagaalka ay ka qabsadeen in ay dib ugu laabtaan kuraastooda. Katay si tartiib ah ayay u lumisay miyirkeeda sababtoo ah oksijiin la'aan awgeed. qalalaasaha meesha ka baxaya wax walba sidii caadiga ahayd ayay ku soo noqdeen. Katay ayaa isla markiiba u soo dhawaatay Alex ay u sheegtay in odayga isla erey uu u sheegay in haweeney da'da ah oo yaab leh. 20 sano kadib waxay dib ugu soo laabatay duulimaadkii burburay. waxay u dhoweyd in ay habaartay naagta, waana sababta waxaas oo dhan ay u dhacayaan. si kastaba ha ahaatee Alex midna ma rumaysan. waxa uu si fudud ugu sheegay inay dhalanteed ay tahay. sidoo kale waxay tusteen nabaro qoto dheer oo lugaheeda ku yaala 20 sano ka hor oo soo gaadhay. Denia ayaa sawirtay sawirada diyaaradda halkaas iyadoo hooyadeed ay wada fadhiyaan kursiga dambe. waxa ay markaas codsatay in ay bedesho kursigaas, laakiin Katay way diiday. intaas oo dhan waxay ku sii aragtay muuqaalo madow oo yaab leh oo diyaaradda ku wareegsan. markii ay cimiladu aad u sii xumaatay, kaaliyaha duulimaadyadu waxa ay daaha ka qaadeen in ay diyaaraddu si degdeg leh u degi doonto isla magaaladii ay Katay ku wajahnayd 20 sano ka hor. dhanka kale, dareere qariib ah ayaa bilaabay inuu ku dul shubmo ganacsadaha hodanka ah kabihiisa. isaga oo xanaaqsan waxa uu isku dayay inuu shito sigaar, laakiin isla markiiba dabkuu shitay. dareeraha ayaaba si la yaab leh u shidmay asagoo si buuxda. Katay iyo inta kale ee rakaabka ayaa isla markiiba u yimi gargaar. si kastaba ha ahaatee, markii ugu dambeysay dabka Nakuli waxaa ka soo gaaray gubasho aad u daran heerka 3aad ee ah, ayadoo shaqaalayaasha diyaaraddu ay degan tahay ayna keeneen gargaar degdeg ah. Katay waxay u jahaysatay inanteeda, laakiin sidii hore wax walba way iska bedeleen.